kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeeni raadraac ood ka daawataan telefishinka dawladda deegaanka Soomaalida ee SRTV maanta waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka raadraac ee taariikhdii magaalada Goday waa tuma xagee ka soo bilaabatay goorma la dhagax dhigay inta dadka reer Goday ayna Goday degin ka hor xagee ku noolaayeen dhaqankii isbedelkii ay magaaladu soo sameeysay dhinaca khayraadka magaaladu lahayd iyo waqti taariikhdii horeba maanta marka barnaamijka raadraac waxaan ku raadraacaynaa taariikhdii magaalada Goday si aan u ogaano magaalada Goday halkay ka timid sanadkii 1964 magaalada Qalaafe waxay ahayd magaalada kaliya ee u ahayd magaalo dadkii deganaa aaga ay hadda ku taalo magaalada Goday iyo agagaarka webiga Shabeelle iyadoo ay dadka Qalaafe u ahayd magaalo iyo saylad ay u iibgeeyaan xoolahooda iyagoo ka soo iibsan jiray badeecada alaabada cunooyinka iyo dharka ay markaas u baahnaayeen waxaa deganaa Qalaafe dad badan oo kala duwan iyadoo ay ahayd magaalo ku xidhan dhinaca ganacsiga magaalooyinka kale ee Soomaaliya ee ku yaalay xadka Soomaaliya ugaas Maxamed ugaas Qani ayaa markaas ahaa madaxa maamulka ee magaaladaasi Qalaafe haddaba waxaa dhamaadkii sanadkii 1964 uu dagaal khadhaadh ka dhacay magaalada Qalaafe iyo nawaaxigeeda kaasoo u dhaxeeyay jabhad Soomaaliya oo xilligaas dagaal kula jiray ciidamadii boqorkii Itoobiya ee Hayle Selassie waxaana lagu kala cararay magaaladii Qalaafe iyadoo ugaas Maxamed oo markaasi ahaana madaxa maamulka ee magaalada ka dhax bilaabatay kala shaki iyo isfaham darro ciidamadii taliskii Hayle Selassie ee halkaasi ku sugnaa intaasi kadib waxay u qaybsameen dadkii ku noolaa magaalada Qalaafe iyo nawaaxigeeda laba qaybood qayb xoolo dhaqato ahayd oo u carartay dhulka miyiga iyo qayb magaali ahayd oo ku jiray ugaas Maxamed ugaas Qani oo iyagu markaas wadanka Soomaaliya galay intaasi kadib ugaas Maxamed wuxuu gaadhay magaalada Muqdisho ee wadanka Soomaaliya iyadoo ugaas Sheekh Maxamed ugaas Sigale oo ku magac dheeraa ugaas Mashkooke oo isagu sii joogay Muqdisho uu soo daba maray ugaas Maxamed kadibna uu yimid gudaha Itoobiya gaar ahaan Qalaafe iyo nawaaxigeeda kadib waxaa dhaxmaray waan ugaas Mashkooke iyo boqor Hayle Selassie iyadoo halkaas ay ku asaasantay degmadii xilligaas Qalaafe kadib ay deganaayeen dadku ee la magac baxday Buulo Mashkooke degmadaasi Buulo Mashkooke ayaa waxa ay ku taalay meel kaga quman hadda halka ay ku taala magaalada Goday 8 kiiloomitir dhinaca koonfur bari iyadoo halkaasi ay fadhi u ahayd ugaas Mashkooke isla marhaantaana ay dhammaan dadkii nawaaxigaasi deganaa isugu tageen noqotayna magaalo yar oo markaasi leh adeegyada ganacsiga iyo tukaamaysiga haddaba waxaa ka waramaya Yunis ugaas Mashkooke oo inooga waramaya Goday asaaskeeda 64 dagaalkii ka dhacay jabhadihii hore ee 64 shacabkii ay kala carareen madaxdoodii ay tageen ugaas Mashkooke wuxuu deganaa Xamar ugaas Maxamed ugaas Qanina dadkii soo kacay ee soo galay ka soo cararay Qalaafo ayuu ka mid ahaa ka soo baxay xabashida falaadkeeda iyo ooga soo baxay labadoodii markay iskugu imaadeen Xamar iyo ugaas Mashkooke soo kacay wadankii buu yimid dagaal baa ka dhacay axmaaradii oo dadkii shacabka ah aad u leynaysa ciidan buu samaystay quraar meesha la dhaho quraar ama labadii baraaka ee cadaada la dhihi jiray yay soo degeen quraar buu u fadhiistay dagaal baa meesha ka dhacay rag badan wuu naga dhintay iyagana rag badan baa kaga dhintay markaasuu galay Itoobiya weligii muusan ahayn markaasuu qabri dahre ka galay Hayle Selassie boqorkii ahaa baa loo sheegay inuu soo galay keenuu yiri diyaarad baa lagu qaaday xaggaasaa la geeyey intii ka horreysay 64 dadku reer miyi bay ahaayeen
qallaafana afar iyo lixdankii wixii ka sii horreeyey 63 iyo ilaa abad ah 62 reer qallaafo unbaa la ahaa dadku qallaafay deganaan jireen 64 dagaalkii ahaa baa laga firxaday qallaafo iyo magaalooyinka kaleba shilaaba ka mida qabri daharra ka mida meel walba dhagax buur baa ka mida wardheer baa ka mida waa laga firxaday maca madaxdii joogtay ugaas ha ahaado waradha ha ahaado waa laga firxado soomaaliya la galay qallaafaa la deganaan jiray waaga marka iyada duqu soo galay baa xayla salaase loo geeyey way wada hadleen waxaa la yidhi wuxuu ku dooday magaalo ma lihi ilaan qallaafo shirkad bay ahayd 9 qolo ayaa deganayadoo iska lahayd magaalo u gaar ah ma ayna jirin markaasuu la hadlay wuxuu yidhi waa yahay sii tag anaa imaanhaye sanadkii 1970 waxa uu boqorkii Itoobiya ee xilligaas ee boqor Hayle Salaase uu markii u horreysay dhagax dhigay magaalada Goday iyadoo uu dhagax dhigay goobihii ugu muhiimsanaa ee magaalada sida iskuulkii, cusbitaalkii, wakaaladii biyaha ama haankii biyaha, masaajidkii iyo goobo kale oo muhiima. wuxuu sidoo kale amray in magaalada loo sameeyo master plan ama wadooyin iyadoo dhammaadkii 1970 ay ahayd markii sida rasmiga ah loo soo degay magaalada Goday iyadoo dadku xilligaas laga soo raray intooda badan meeshii loo yaqaanay ama degmadii Buulo Mashkooke. haddaba sidii lagu soo degay magaalada iyo taariikhdaas haddana waa kan mar kale Yunis Ugaas Mashkooke oo inooga warramaya. 64 aakhirkeedii ayuu Hayle Salaase yimid marka uu imaanayo wuxuu yidhi magaalo xaggeen kaaga dhigaa halkan buu yidhi oo hawd dam ah magaalo iyaga dhig buu yidhi suubaan belel baa la dhihi jira meel oon midhan ah ayay ahaan jirtay 7 meelood ayuu calaameeyey shimintada Hayle Salaase markuu qaado uu dhagaxa ku shubo duqana uu ka daba qaadahay uu ku shubay shimintada aasaaskii weeye 7 baan kuu sheegay waa Bedmingist iyo Beit Kiristiyaan iyo iskuulka iyo masaajidka caafimaadka iyo haanka biyaha 7 meelood waa 7 haarood ay ku fadhiyaan magaaladu ay ku fadhido waa haara iyada uun jagaagac ah Hayle Salaase wuxuu yidhi intaan kuu dhisahayo dadkaaga meel deji sidaasaa Buulo Mashkooke loo leeyahay meeshaas oo dowlad bacaad la dhihi jiray ayuu degay dadkiiba iskugu yeedhay soo dega buu yidhi magaalada. Yunis haddii aan kaa dhex galo Buulo markii Hayle Salaase yidhi halkan iiga dhig waa halkay magaalada Goday hadda ku taalee Ugaas Mashkooke ama Ugaas Sheekh Maxamed Ugaas Mashkookana ku magac dheeraa markuu yidhi halkan iiga dhig 7 haarood ee halkaa ku yaalay ama taagga ahaa ee laga dhisi lahaa masaajidkii kaniisadii iyo meeshii la dhihi jiray iskuulkii iyo haankii biyaha iyo adu meelihii muhiimka markay dhagax dhigeen Ugaaska iyo Hayle Salaase boqorkii markaa Itoobiya waxaad sheegtay in uu Hayle Salaase yidhi inta waxaan la dhisayo ama magaalada intan dhagax dhigan la dhisayo dadkaada u yeedho meel isugu sii aruuriyo meel sii deji meeshaasi marka waa meesha dadku hadda yiraahdaan waxa la dhihi jiray Buulo Mashkooke bal Buulo Mashkooke haddaad sawir naga siiso magaalada Goday hadda imsa kilomitir bay u jirtaa meeshii ahaan jirtay xaggee kaga qumanayd waqooyi bari koonfur galbeed bal calaamad naga siiyo dadku markay halkaa degeen waxay isticmaalayeen ay cunayeen say u degeen magaalada Buulo Mashkooke la dhihi jiray loo bixiyay dadkeenu ay u bixiyeen laakiin dowlad bacaad la dhihi jiray waxay ku aadan tahay koonfur iyo magaalada kale ka tahay
koonfur bay ka tahay magaaladan hadda joogto goday bay koonfur ka tahay webigana way saaran tahay qarkeeda webiga agtiisa 500 tallaabo unbay u jirtay ama ka yarba qaar baaba gebiga saaraaba meeshaasaa dadkii iskugu yimid magaala laga sameeyey dukaamaa laga samaystay maqaaxiyaa laga samaystay ganacsi baa laga sameeyey 65 markay tahay si fiican meeshaa loo degay tii kalena la dhisaayo 5 sano ayaa halkaa deganayn buulo mushkoolka 70 aakhirkeedii yaa la yidhi soo wareega marka goday ku soo wareega adun wixii dawladdu ay lahayd ay dhistay halkaasaan yaa nimid jidad baa loo sameeyey diyaaradda markaad saaran tahay hoos haddaad fiiriso jidadkii goday waagaa loo sameeyey girmaawi qadhamaawi xayla salaasi ayay ahaayeen qoraal ahaan jidadkii naftoodii jidkii naftiisii yaa magacii xayla salaase ahaa girmaawi qadhamaawi xayla salaasi ayay ahaayeen waan degnay marka si fiican ayaan u degnay dadkii kale duqu ulbuu ku keenhayaba soo guur 2 sacaad soo qaado halkan soo deg carruurta iskuulka gee wuu ku cadaadin jiray iskuulka carruurta hala geey biyogelin bay noo sameeyeen meeshu waa suubaanbele leh meeshaasaa bahalladan biyaha laga shub tuubooyinka ah ayuu sameeyey dhib badan baa ka dhacay nin iyo dumaashidiiba garabka isku dhufanayay biyo la'aanta meesha ka taagan ilaa booyado la keeno oo dadka loo shushubo booyado 2 saf baa magoday noqotay marka amaara safar iyo soomaali safar ayaan u kala degnay ilaa nin axmaaro iskuma aaminaynin duquna meeshaas uu ka ahaa ugaaskeena ka ahaa gudoomiyihii degmadana ka ahaa siday saa u ahayd kolba wuxuu ku waanin jiray dadka nin kasta oo soo dega magaalada ha celinina ha la diririna ganacsiga iyagaa yaqaana markaa aad idiin imaado ganacsigu idin bari ganacsigaasaad ganacsinaysaan wax kasta oo carab hadduu yahay iyo carabta yemanta ha u diidin ee magaalada dejiya ha magaalooduu lahaa markii dambe dadka aad u degeen magaaladii oo fiicnaatay yuu isagu iskaga wareegay harar buu degay ilaa mushaari buu ahaa harar buu mushaarkiisa uun ka qaadanay iskana degay dawladdan hadda timid horta tii hore wax mashruuc ah oo goday uu siiyey horta ma jirto keligaanana ma aha liibaan xataa muusa siinin afdheer muusa siinin 3 gobol wax mashruuc ah oo dawladdu lahayd uu siiyey ma jiro wuxuu ka gooye mooyaane ha ahaato tanaa hadda timid tanaaba wax noo qabatay oo magaaladii wax ka qabanaysa oo biyogelin iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay jidad samaysay wax mashruucah dawladdana inaga soo gaadhay biyogelintaas hadda la wado annagu wax weyn baan u qaadanaynaa wax weyn yaan u qaadanaynaa jidadkan 8 ah ee la samaynhayana wax weyn bay noo tahay magaaladuna magaalo annagu keligeenna aan leenahay ma aha
waa magaalo soomaali oo dhan ay qolo walba ka degto jigjiga oo kalaan nahay jigjiga iyadan ruux walba waa degan yahay annagana sidii oo kale etoobiyada haylandiga jirta qolo aan deganayn ma jirto nabadgelyo waa meesha ugu nabadgelyo badan haddii ilaahay kuu ron yahay ruux walba soo haminayo goondar iyo goojaan baa laga soo socdaa oo baabuuro iyo meeshan la rabaa in laga dhigto ganacsi weyn waddankoodii bay aamini waayeenoo nabadgelyo darri ah 64 sidii looga yaacay qallaafo iyo magaalooyinkan waaweyn ee kililkeenna hadda ah qallaafo unbaa la deganaan jiray dadku halkaasu ku noolaa yunis waxaad sheegtay in magaalada goday dadkii soo degeen mashruucii magaalada lagu dhagax dhigay markii la dhisay meelihii muhiimka in magaalada dadkii la soo dejiyey dadkii ay saa ku soo degeen iskuulkii la galay masaajidkii lagu tukaday la dhisay haankii biyihii la sameeyey tuubooyin la sameeyey maadaama meesha subaanbel lahayd oo ooman ahayd tuubooyinkii laga cabay bal intaa kadib intaad ka xasuusato dadku markay halkaa marayeen noloshooda maxay ku tiirsanayd dhinaca beeraha bal ka warran beeraha see loo meelgeliyey webiga dushiisa xoolahii iyo sayladii iyo dadkii macaamiladoodii iyo ganacsigu dadku markaa xaggee uga imaanayey ma soomaaliya uga imaanayey ma etoobiyadan uga imaanayey maxaa laga ganacsanayey bal nidaamkii saa u yar sharax haddii la yidhahdo horta waxaan rabay inaan ku hormaro mid dib aan u dhigtabe beeraha waxaa deganaan jirtay hay-ad la dhaho RSB waxaa haystay nin caddaan oo ingiriisa oo la dhaho dalen yaa haysan jiray axmaaro badanna etoobiyaanka kale way deganaayeen meesha oo shirkad weyn hay-ad weyn bay ahayd oo beeraha ah iyagoon waxbaba noo qabanayn oo meel un lacagtas kaga cunahayo oo la dhaho mokoraaga tijaabada uun bas meeshan jeelka hadda laga sameeyey meeshaasoo mokoraa ahayd unbay uun iska khudrad iyo adduun iyo liin iyo wax un ku samayn jireen wiil eritreyaana asalkiisa etoobiya unbay ahayd waagaase eritreyaanoo suudaan wax ku soo bartay oo abiyu la dhaho yaa noo yimid la keenay ninkiibaa beerihii badiyey in yar bayba ahayde degtaas in yar bayba ahayde isagaa ballaadhiyey waa nin jaamacadda suudaan ka soo baxay buu ahaa aniga saaxiib baan ahayn waan wada socon jirnay jiilaal baa dhacay marka masagadii gellaydii ay abuureen degtaa dadkii joogay unbaa saabab iyo dameero soo qaateenoo habeenkii unbay jaftaan un aqal walbaba karoor masaga ah ama sabuul ah yaa hor yaalla ciidan baa lagu bixiyey waan la socda ciidanka waxaa la yidhi aqal walbaba maadaa iskale masagadan haa anaa leh geesinimada ay sameeyeen haa anaa leh say u lahaayeen yaa la yidhi dawladda beerteeda miyaa ka soo gurateen haa bay dhaheen waa ka soo gurannay dawladdu waxba nooma qabanin baa layidhi abaar baan ku jirnaa waxayna siisay ma jiro dawladda la sheegiba waa annaga beerta abuura annagana waan goosanaynaa annagaa iskale ciidankii oo wiilkii abiyuhaa la socdo yaa wuxuu yidhi waa runtood qaata buu yidhi markaasaa la bilaabay shacabka dadka masaakiinta ahee aan waxba haysan in markaa beero loo sameeyo hegtaaro waa midda kunka ah barsanta ah badeelacad goodirey intaasaa loo sameeyey dadkii markaa danta yar ahaa aan loo kala dayayn qabiil heble iyo qabiil hebel aan loo kala dayayn yaa la siiyey dhanaanna $1 la dejiyeyba oo hay-ad kale oo world vision la dhaho
oon ka shaqaynaya anugu war television oo nin maraykana uu lahaa oo dawladdii xayl salaase markuu dhacay dargigii damacday inay la wareegtaba shirkaddoo dhan ayaa loo diiday oo liyi maraykanka jooji nin la dhaho doctor macluur yaa iska lahaa waa nin taajir oo dayaarada leh wadaadnimuna meeshaa u fadhiyey shirkaddanna isagaa iska lahaa markii dawladdii laga celiyey inaynan la wareegin ta'miin baa la dhahaa inaynan la wareegin shirkadda wixii etoobiyada kale ay dargigii la wareegeen yaa waxaa la keenay nin la dhaho steve oo isna wadaad ah wadaad gaalnimo kiniisad wata kii baa markaa xidi doole beero ka sameeyey reer dhanaan baa la soo raray halkaas iyagana la dejiyey xagganna degtaa dadkii abiyo uu wax u qabtay weeye sidaasaa horta beerihii yay ku hirgaleen macluur doctor macluur ninkuu wax kaluu ahaaye doctor macluur umbaa la dhahayo oo cajalado unbaa loo soo dirahayo uu la dhihi jiray sheekhuna iisoo ducee saasaan ahay iisoo ducee la dhihi jiray ilaa ninkuu wax kaluu hoosta kaga jira waan ognahay maalinkii la dilay waxaan joogay harar idaacaddan ka dhegaysanaya waaba brigadier general c i a ayuu ahaaba maraykanka waa nin caddaane doctor macluur oo brigadier general c i a ah yaa lagu dilay baa layidhi goday anna shaqaalan u ahaa ma garat beeruhu horta sidaasa yay ku hirgaleen lo' buu gatay abaartii sac jilibka lagu hayo oo saynta la hayo yuu 10 riyaal dadka ka siisanaya meeshanoo banki degtaa ah oo barsanta ah yuu wuxuu ka beeray alfa iyo suudaan garaas iyo adduunoo dhan lo'dii intuu kaxayo dhex fadhiisini say saa u lahayd ilaan lo oo dhanna waa irmaan tahay bahal caano ah unbay sii dayso geedkan la wada ekaatay sidaasay horta beerihii yarkii aabiyuu ahaa aabi xile salaasaa yimid wuu yaabay beeraha siduu u sameeyey wuxuu yidhi yaa sameeyey sidan aabi baa sameeyey baa layidhi waa loo yeedhay sarwaal jeexjeexan midna kor u jiitay midna hoos uu dhigtay timo afroo ah leh oo dhoobadii iyo kanaalkii biyaha ku dhex jira yaa la yidhi waa kan wuu waraystay wuxuu yidhi xaggeed wax ku soo baratay suudaan baan ku soo bartay bir 2 sano iyo ama ameerika jaamacad ah iyo u dirayba tigirkii ka bixiyey wax walba bogtmanigiisii wixiis wuu naga tegey hadda markii qixii laga soo noqday intaan laga soo noqonin ku dhow iyo intuu goday yimi soo ameerika ka yimi yuu leeyahay yuunus mashooke aaweya warwaraysanayo middaa horta sidaasay ahayd mid baa kalaankaa iloobay hadda dadkeenna wax yaqaana ma jiro garoonkii goday magaciisii hore asalka ahaa wax yaqaana waa gaabad ma jiroba nin iyo laba mooyaane fiisawaraari alamayo gooshu baa la dhihi jiray aerobortka waa nin magacii alamayo gooshu waa nin magacii oo fitawaraarina waxaa weeye horjooge weeye fitawaraari iyo dajaajmaash iyo qanjaasmaash iyo garaasmaash iyo baraambaraas iyo waxaasoo dhan waa darajooyinkii xale salaase waka marka fitawaraari alamayo gooshu baa la dhihi jiray airport ee goday duqu wuu ka bedelay wuxuu yidhi joojiya iga xidha buu yidhi xidi doole airport ka dhiga buu yidhi goday tigidhka
xididoole airport goday baa ku ooli jirta markaan goosanayno tigirhka een xagga u soo baxayno dee mar kale unba intaan show aan meelaha soconayba haddana axmaaro bedelat etoobiyaankii way bedeleen magacii ma garat laakiin muddaba sannado xididoole airport baan ku soconi jirnay oo ku duuli jirnay iyaduna saas ahaydoo saasuu u celiyo yir jooji almaayo goosha aniga igama dhalalinne isaga naftiisana iskuma magacaabin oo uu ka xishooday laakiin waddanka u dan lahaa xididoole uu ku qoray xididoole airport goday yaan ku dooli jirnay taana way jirtay beerahuna dadku si fiican bay u beeranayeen hadday yacni dhan rogmeene hektaarkii waan garanhayaa 100 in laga jartay in yacni laga goostay 100 yaa laga goostay hadda kolba si u soo gaabanhay waka hadda salka jooga hektaarkii 20 xaaji yunis waxaad sheegtay ood nooga faa'iidaysay wax badan oo taariikh badan oo aan u baahnayn inaan ogaano maadaama barnaamijka raadraac ee telefishinka SRTV loogu talagalay in lagu raadraaco taariikhaha suugaanta khayraadka hadday tahay dhaqanka wax kastoo u baahan in lagu iftiimiyo taariikh horena lagu raadraaco maanta waxaan ku jiraa oon bartamaha kaga jiraa barnaamijkeeni raadraac waynu ku soo qaadanay taariikhda magaalada goday wax badan baad noo sheegtay siday u soo taalay sidii loo dhagax dhigay sidii loo soo degay waxaa kaloo hadda noogu dartay anoo kaaga mahad celinaya in garoonka xataa diyaaradaha ee halkaa ku yaalla goday ee hadda goday ku yaalla magac nin xabashi ah oo brigade general iyo guuto magaceed lahaa in loogu magac daray uwaas mashkookana xilligaa uu ka dhiidhiyey oo uu ka bedelay isagana magaciisa uusan isu bixinin uu bixiyey xididoole airport goday sidoo kale ma jiraan meelaha hadda xilligii Hayle Salaase uu dhagax dhigay oo meelihii waaweynaa ee mashruucyada ahaa oo xilligaa magac noocaas oo kale loo yaqaanay ama loogu magac bixiyey haddaan su'aal labaad ku darana hadda waxaan ka sheekaynay xilligii boqor Hayle Salaase bal haddaan ka soo gudubno Hayle Salaase boqorkaas xilligiisii magaalada goday dhargigii muxuu ka qabtay mashruucyadii waaweynaa ee la xafsan karo ee dhargigii ka qabtay maxaa ka mid ah tii Hayle Salaase unbuu sii ballaadhinayay waa dargigii waa xagga beeraha wax mashruucoo kale uu keenay ma jirto midda kale dadkiiba waa laga kala carro in yar baa un deganayd magaalada dargigii laakiin sidii uu jeclaa waa jabhadaana soo galay jabhadihii Soomaali galbeed yaana soo galay RSB yaa jirtay oo meesha deganayd dargigii markuu yimid state farm buu yidhi oo wuu kala bedelay laakiin wax mashruuc ah oo aan garanhayo 7 haarood siday ahaayeen ee loo dhisay unbay u dhisan yihiin aminkanba boqor Salaase calaamadeeyey duq u taagay kambaniyaashii dhisay waxaa la kala dhahaa 3 kambani bay ahaayeen Skanska Zabolla Bolera 3daasa magaaladan asaaskeedii horta dhistay intii xaggaa la deganaa laakiin dargi shay waan arkay qalaafi iyo burburay hadda shay qalaafi iyo goday ah waan arkay shay qabri dahre iyo goday u dhaxayana waan arkay laakiin magaalada dhexdeeda wuxuu ka qabtay ma jiro marka waxaan dhigi karaa waxyaabaha ugu waaweyn mashruucyadii waaweynaa ee magaalada goday lagu bilaabay boqor Hayle Salaase iska lahaa dhargigiina saad sheegtay dawladda Mingista Hayle Maryan waxba magaalada kama qabanin dhinaca mashruuca beeraha hadday tahay mashruucyada waaweyn ee kale ee magaalada waxaanu sheegtay hadda xustay in chayga u baxa wadada chayga ee dhagax ee u baxda qalaafe iyo goday oo hadda burburtay iyo wadadii intaan laamiga laga dhigin koor qabri dahri isku xidhaysay goday inay ahaayeen waxaad ka xasuusto dhinaca galbeedka goday haddaan u kacno mashruuc biyo xidheen baa ku yaala isagu ma Hayle Salaase ama dhargigii buu ahaa midda kale shirkad waxay dadku sheegaan ayuka iyo wax la dhihi jiray bal kuwa ayagu maxay qaban jireen bal xilliga nooga waran iyaga gidibka la dhahaa horta biyo xidheenka iyaguna gidib bay dhahaan innaguna biyo xidheen baan dhahnaa haddii chayga la raacana waa 40 iyo googo adugu ilaa 50
haddii hoos la raacana waa 40 kilomitr aasaaska meeshan gidib in laga sameeyo Xayla Salaasaa lahaa water resource buu dhihi jiray marka hore wuxuu soo dhigay qari shaqood meeshuu webigu soo maro iyo biro iyo alwaaxyo iyo adduun iyo dhigay in halkaana biyo xidhan laga sameeyo halkana biyo xidhan laga sameeyo ayuu u dhigay Xayla Salaasa water resource baa la dhihi jiray laakiin dargigii weeye horta waxa bilaabay asaaska isagaas ka lahaa magacan isagaas ka lahaa kanna wuu bilaabay Xayla ma bilaabin magaca iyo dhigid iyo waxaasuu lahaa mingisti baa bilaabay kambaniyaal badan baa iskugu tegay ayuu ka sheegayso waa kuwii uun dhisahayey meesha yuu ka mid ahaa markii dambena iskagaba teg markuu dhammeeyey laakiin mashruucan waa mashruuc aad u weyn wuu fiican yahay haddana qaabkii aan doonaynay ee gidhibyada adduunka aan ku naqaanay ooma samayso gidhib waxaa la rabay kor oo biyuhu ay ka soo dhacahayaane midii hawaash gorgo oo kale hawaashtan Xayla Salaasa markuu furayey webigiiba intii la leexiyo buur la saaray yaa buurta dhan kale laga soo daayey oo loo dhiga mashiinadii iyo adduunka laakiin kan ma aha waa siman yihiin un webigii waa imaani bas kanaal baa loo sameeyey weyn oo webi labaad ah halkaanbu beeraha ayuu ka waraabiyaa dhowr koor bay soo noqdeen kuwo injineerina waagii oo yidhi gidhibkan ballaadhinaynaa waxay nagu soo noqdana ma aragno waxaynu kusii dhownahay hadda gebagabadii waraysigeenna adiga qaybta ku khusaysay ama aan kugu tuhmaynay inaad taariikhdeeda hayso weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni raadraac ee telefishinka SRTV maanta waan kusoo qaadanay taariikhda goday iyo nawaaxigeeda wixii ka jiray iyo siday ahayd haddaba bal haddaan gebagabadii maadaama hadda joogna aan su'aal ku weydiiyo goday intay dhisnayd waan ka soo sheekaynay waxaa dhacday dagaal Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray 77 bay Soomaalidu ugu magac dartay ama 77 goday xilligaas sidee buu u saameeyay waxaa la sheegaa magaalooyinka aad loogu dagaalamay inay ahayd burbur intee dhan buu u geystay saameyn intee leeg buu u geystay bal haddaad wax ka iftiimisa xataa buundada goday ee webiga Shabeelle looga gudbo waaga inay gooday baa la sheegaa bal wixii aad ka xasuusato dhibaatadii dadka hadday qixii iyo dhibkii gaadhay bal waxyaabihii in yar haddaad ka xasuusan karto bal xilligaas bal haddaan soo gaadhna bal waxaad ka xasuusan karto 77 way jirtaa dagaallo xun baa ka dhacay ciidamadii jabhadda iyo Soomaalida ciidamadeedii iyo Itoobiyaanka ciidankin meeshan buundada general nin la dhaho Colonel Terso oo commandos ah oo Soomaaliya ah ciidankiisii iyo xog ku soo galayay buundada rag badanna wuu kaga dhintay markii dambena wuu qabsaday isagiina meeshaas ku dhintay xabaashiisa aminka ma ku taallaa meesha lagu xabaalay buundada cidhifkeeda dambe ee xagga degtaa ah meelahaas ku xabaalan yahay laakiin dadkii dhib badan qax ayaa ku dhacay ciidan baa isleynayee shacabku waa iskaga carareenba Soomaaliya ayay galeen qaxootiyay noqdeen buundaduse waa la qarxiyey ma go'in baasha xoog bay leedahay way leecday saas in yar janjeer yay u leecday waan garanhayaa aniga oo jambigana haysta taayarana gudbinaya waan garanayaa marka dib dambaa laga sameeyey dargii uu sameeyey shacab waxba lama yeelin laakiin qax xun yaa ku dhacay qaxii ha dhacaana magaaladii ganacsatadii oo dhan badeecooyinkoodii dad unbaa fadhataysta un fadhata unbaa laga dhigtay wax la cununa lama waayin anuu colkii u baxsaday ceel barde ayaan ka mid ahaa intaana halkaa ka bixin 77 ama 77kii dagaalkii goday ee magaalada goday waxay dadku sheegaan ma garanay halkay taariikhda ka keeneen inay magaaladaasu tahay magaalo Itoobiya markii loo eego dhinaca militariga strategically militariga wax u ah macnaha inay tahay airportka ku yaalana uu yahay iyadoo hadda dhinaca civil aviationka iyo arrimaha shacabka loo isticmaalo
uu yahay airport military waxaa taale qaabkii meelihii baarkinadii diyaaradaha miiga iyo noocyada ay diyaaraduhu uga duulaan iyadoo qaybo badan oo xuduudda Soomaaliya iyo gudaha Soomaaliyaba laga duqeynayay xilligaas ay dadku sheegaan Itoobiya iyo Soomaaliya labadaba waxay muhiimad gaar ah siinayeen in istiraatiijiyadda magaalada Goday ay gacanta ku dhigaan iyadoo Itoobiyana inay difaacatay ku dadaalaysay Soomaalida ciidankeedina say dadku taariikhu hadda sheegaan ay ku dadaalayaan hadday Goday qabtaan in dhulka kala qabashiisa ay u fududaanayso marka Goday waxaa la sheegaa oo kala xataa meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Goday in ay diyaarad ku soo dhacday Itoobiya iska lahayd bal maxaad arrintaas ka leedahay maadaama goob joogeed xilligaas dagaalka 77 dagaal aal u kulul buu ahaa Soomaalidu waxaa dan u ahayd kow marka u horeysa Goday inay qabtaan asaaskeedii horena Xayl Salaase markuu iyo duqo ay meesha dhagax dhigahayeen airport in laga sameeyo ujeedadiisu waxay ahayd Soomaaliya in lagula dagaalo hadday Soomaaliya ku soo xadgudubto iyo hadday iyagu maagaanba labaduba in ay garoon military amminkanba wuxuu ku magacaaban yahay military airport waa magaca hadda military airport meeshii Dabrazeed ay ahaan jirtay diyaaradaha dagaalka xeradoodii Goday baa laga dhisay si cadowga halkan looga duulo ee garoon civil ah oo civil aviation ah ma ahayn waa la isticmaalayay diyaaraduhu way isticmaalayeen laakiin waxaa loogu talagalay waa military xagga qoraar baa laga soo sameeyay ciid xaggana ciid buur baa laga dhigay diyaaraduhu halkaas hadda mid baa loo sameeyey middiiba mid ayaa loo sameeyey saasay horta dagaalka ahaa anugu wax diyaarada soo dhacday ma arag laakiin dagaalkii Soomaaliya ay soo qaaday taawarkii dheeraa ee laga hagaayay radaarka laga hagaayay diyaaradaha ee wada muraayada ahaa dheeraa ee adduunka dhan ku yaalo yaa ku ooli jiray madaafiicii Soomaalida yaa kurkaa gooyeyba way go'an tahayba markaa dhibkaa wuu jiray oo ciidamo badanna way deganaayeen kubar zaman yaa deganayd Aratanya brigade oo hadda brigade kale iska leeyahay waa Aratanya brigade way deganaayeen laakiin si xun iyo si xaraar baa laga kiciyay qabri dahare iyo wardheer oo isku soo daray iyo Goday oo cararkii si ay u socdeen gannad baa jira dhagax buur wax aad iyaduna loogu baaba'ay Soomaaliduna ay ku baabaaday weliba aad u badan dhagax buur ayaa jirta dagaal xun ayaa ka dhacay iyadana oo ciidanka Soomaalida badi kuwa artilleriga kuwa la dhahay ee madaafiicda iyo infantry iyo daraawiishti dhagax buur waa ku go'een markii dambe way qabteen markii dambe way qabteen iyaguna jaygiiba ku carareen kuwana xagga fiiq iyo xaggaasay baabile ku carareen saddexdan qolo oo wada socota qabri dahare ciidankeedii wardheer ciidankeedii mustaxiil oo fiita waraari ah oo qowga saareed ciidankoodii Goday bay imaadeen halkaas markaa laga soo cararay wadadii baabile iyo ku soo carareen sii cararayaan jabhadii baa ka sii horeyso sii farataysanaysaa qubta ku sii haysa ciidanna wadaba socdo magaalada Goday waa xarunta gobolka Shabeelle
magaalada Goday waa xarunta labaad ee ugu weyn magaalooyinka deegaanka Soomaalida. Waa magaalada ay ku nool yihiin tirada dadka ugu badan ee deegaanka marka laga reebo magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida. Goday ayaa ah magaalo istiraatiiji ah iskuna xidha ganacsiga iyo isu socodka saddex wadan oo ku yaala bariga Afrika. Waa wadanka Itoobiya ee juqraafi ahaan ku taala magaaladu, wadanka Soomaaliya iyo wadanka Kenya. Magaalada waxaa taga ganacsiga iyo alaabada ay soo saaraan warshadaha Itoobiya iyo sidoo kale dalagga iyo cuntooyinka ka soo go'a beeraha qaybo badan oo kamid ah deegaanada wadankan Itoobiya. Waxaa magaalada Goday dhex marta wadada weyn ee laamiga ah ee ka soo baxda magaalada caasimadda wadankan Itoobiya ee Addis Ababa ee soo marta magaalooyinka waaweyn ee Nazireed iyo Harar. sidoo kale wadadan ayaa soo dhex marta magaalooyin badan oo waaweyn oo ku jirta caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida sida magaalooyinka Qabri Bayax, Dhagax Buur iyo Qabri Dahar. sidoo kale waxaa magaalada dhinaca waqooyiga galbeed ka soo gala wadada ka timaada Aaga Baali, magaalada Gendar ee deegaanka Oromiya. magaalada Goday ayaa looga dhoofiyaa qaybo badan oo kamid ah wax soo saarka ka soo go'a beeraha magaalada Goday sida basasha, iyadoo loo dhoofiyo loona iibgeeyo qaybo badan oo kamid ah deegaamada Itoobiya iyo deegaanka Soomaalidaba. waxaa magaalada dhinaceeda koonfur bari uga baxa kana soo gasha wadada aada magaalada Beledweyne ee wadanka Soomaaliya oo sii marta degmooyinka gobolka Shabeelle ee Qalaafo, Mustaxiil iyo Feyrfeyr. waxayna magaaladu la leedahay magaalada Beledweyne ee wadanka Soomaaliya xiriir dhinaca wax isdhaafsiga ganacsiga. waxaa sidoo kale magaalada Goday ka soo gasha ugana baxda jihada koonfureed wadada tooska u gasha magaalada Mandera ee wadanka Kenya ee sii marta gobolada Afdheer iyo Liibaan, gaar ahaan magaalooyinka Hargeysa, Dolobay iyo Dolocado, iyadoo ganacsiga kala dhaxeeya magaalada Mandera magaalada Goday uu yahay ganacsiga dhinaca maacunta, furaashiyada, shoppingka iyo waliba electroniga. iyadoo magaalada Goday ay ku taala sayladda ugu weyn ee gobolka Shabeelle ayaa waxaa magaaladu ay la leedahay wax isdhaafsi dhinaca ganacsiga xoolaha nool magaalada Mandera sida dibida iyo awrta oo laga dhoofiyo sayladda magaalada Goday loona iibgeeyo sayladda magaalada Mandera ee wadanka Kenya. dhaqaalaha dadka magaalada Goday ayaa wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga, wax soo saarka beeraha iyo kheyraadka xoolaha nool. magaalada Goday ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay magaalooyinka Geeska Afrika sameynaya koriinka aadka u badan, iyadoo magaaladu ay horumar ka sameynayso dhinacyada koritaanka, maalgashiyada iyo waliba ballaarashada. magaalada ayaa taariikh ahaan aad u yar, balse marka la fiiriyo la tartamaysa magaalooyin fac weyn oo ku yaala guud ahaan Itoobiya iyo Geeska Afrikaba. magaalada Goday ayay ka muuqdaan maalgashiyada ay ka sameynayaan shacabka magaalada, qurba joog iyo gudug joogba, iyadoo ay dhawaanahan soo badanayaan maalgashiyada dhinaca beeraha iyo ganacsiga, iyadoo arkayso dhismayaasha dabaqyada waaweyn, meheradaha sida hoteelada, kafeteriyooyinka, supermarketyada waaweyn, kaalimaha shidaalka iyo warshadaha soo saara biyaha nadiifta ah oo dhammaantoodba maalgashiyo ay sameynayaan dadka shacabka ee magaalada, qurba joog iyo guda joogba, iyagoo maalgashanaya magaalada. sidoo kale magaalada ayaad ku arkaysaa maalgashiyada dhinaca ganacsiga ay ka sameynayaan dad badan oo ka soo jeeda deegaamada wadankan Itoobiya. shacabka magaalada Goday ayaa caan ku ah soo dhaweynta iyo wax isdhaafsiga dhinaca ganacsiga, iyadoo ay bulshadu aad u soo dhaweyso cid kasta oo hal-abuur leh, isla marhaantaana ka sameynaya magaalada maalgashi dhinaca ganacsiga, iyadoo la sheegay inay tahay sirta iyo sababaha ugu wacan in magaaladani ay noqoto magaalo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan, isla marhaantaana sameynaysa koritaanka dhinaca maalgashiyada, ganacsiga iyo ballaarashada. dhinaca kale magaalada Goday ayaa hadda horumar ka sameynaysa dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo ay dawladdu ka wado mashruucyo waaweyn sida mashruuca biyo-gelinta Goday oo dabooli doona guud ahaan baahida dhinaca biyaha ee magaalada Goday.
sidoo kale dowladda ayaa wada wadooyin dhowr ah oo laami ah oo dhex mari doona qaybo badan oo ka mid a magaalada goday gudaheeda iyagoo qayb ka noqon doona quruxda iyo isu socodka dhinaca adeega wadooyinka ee magaalada iyadoo ay xusid mudan tahay inay sidoo kale dowladdu hirgelisay dhammaystirtayna wadooyin dhex mara magaalada gudaheeda oo nooca loo yaqaana cable stoneka iyo sidoo kale wadooyinka qaar oo lagu xidhay layrasha sare ee iftiima habeenkii oo soo jiidasho leh dowladda ayaa wada mashruucyo badan oo kale oo iyaguna laga wado magaalada goday iyadoo ay jiraan qorshayaal loogu talagalay magaalada in lagu horumariyo waxaa arrimahaas dhammaan inooga warramaya maayarka maamulka magaalada goday mudane axmed sheekh maxamuud dhinaca wadooyinka oo kale magaaladu waa magaalo master plan-keedu aad u fiican yahay waxa ballaarin lagu sameeyay master plan-kii ama qorshahagihii magaalada ayaa aad loo ballaariyay waxaa jiray magaaladu 2 kilomitir oo laami ah ayay lahayd ama la sameeyay 27 sano ee la soo dhaafay laakiin nasiib wanaag sanadkii 2011 10 kilomitir oo laami ah oo dheeri ah ayaa la sameeyay hal sano 10 kilomitir baa la sameeyay 27 sanana waxaa la sameeyay 2 kilomitir dhinaca cable-stoneka runtii magaaladu cable-stone badan baa yaala inkastoo ay jireen qorshe xumo hadda ka hor dhacay oo ahaa meelo loogu talagalay laami in cable-stone la saaray haddana cable-stone badan ayaa hadda la sameeyay ilaa 5 wado oo cable-stone ayaa iyadana la sameeyay lightka ama street lightka 27 sano gebi ahaanba wax street light looma sameynin laakiin sanadkii hadda la soo dhaafay 3 kilomitir oo street light ayaa la sameeyay haddana functional oo shaqeynaya dhinaca waxbarashada runtii magaalada waxaa ka jira 13 iskuul oo dawladdu leedahay waxaa ka jira muxuu ahaa ilaa 5 iskuul oo private waxaa laamo ku leh jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadaha kale private-ka intaba isbedel kadib waxaan xooga saaray in aan wax badan ka qabano dhinaca tayada waxbarashada runtii isbedel badan ayaana ka jira dhinaca tayada waxbarashada magaaladu marka si guud isbedelkii kadib dhinaca infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha in badan baa kor loo soo qaaday baa la oran karaa sidoo kale airportiga hadda ayuu qorsheysan yahay bidkina waa la sameeyay in cidi ku guuleystay imaato hawshooda la bilaabo January 2020 in la bilaabana waan rajaynaynaa haddii la yiraahdo 2 bilood kadib dhinaca warshadaha runtii oo aan doonayno inaan dhiirigelin badan u sameeyno waxaa jira meel aan ugu talagalay in warshadaha magaalada ku ururino hadda kadibna warshaduhu ay halkaas ku soo hirtaan oo dhinacaas aan u sameeyno waxaanu dhagax dhignay ama aanu booski u diyaarinay waxa la yiraahdaa industrial zone ama aaga warshadaha oo anagu ka maamul ahaan doonayna inaan gaarsiino leerkii iyo biyihii warshaduhuna xaggaasi hadda kadib ay noqdaan meel ay ku ururaan isla markaana ay maalgashooda ka sameeyaan marka kulli ma jiro mashruuc diyaar noo ah laakiin weelka ayaanu sii sameynay oo aagi ayaanu sii cabiray muxuu ahaay coordinate ka soo qaadnay GPS ka gelinay isla markaana aan u diyaarinay in dadka doonaya maalgashiga dhinaca warshadaha inay sameeyaan in aanu geyno isla markaana ay warshadooda ku bilaabaan. Waad mahadsantihiin.